maqalka iyo daalacashada sheekooyinka guushu waxaa hubaal ah inay qofka ka dhigayaan mid u tafaxayta wajahidda nolosha, sidoo kalena ku beerta dhiiranaan iyo hal-adayg hor leh. laakiin sidoo kale waxaa hubaal ah in maqalka sheekooyinka guuldarrada iyo fashilka ku soo idlaaday ay kaa dhigayaan mid ogaada waddooyin ay ku guuldaraysteen dad kaa horeeyey, sidoo kalena hilfaha u laabtay shirkado qarniyo shaqaynayay. horey waxaan uga soo hadalnay sheekada guuldarrada Nokia, laakiin daawade weli ma maqashay sheekada shirkad lagu magacaabo Motorola? dabcan haddii aad horey u daawatay sheekada Nokia, waxaa maankaaga ku soo dhacaysa inay ahayd shirkaddii ay Nokia ka saartay suuqa taleefannada, ama haddii aan si kale kuu dhaho, Motorola waa shirkaddii ugu horeysay abid ee hindista in aadamuhu moobil ku wada xiriiraan. laakiin arrintani kama dhigin mid ku sii waarta suuqa taleefannada. haddaba kaalaya aan wada daalacanne sheekada mid ka mid ah sheekooyinka guuldarro kuwooda ugu yaabka badan. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina oo ah Bari Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. We got company. Yes, I know. There's no success in this or any other business that doesn't begin with ambition and effort. Iglelihii shirkadda Motorola, Paul Golfen, wuxuu dhashay sanadkii 1895 isagoo ku dhashay gobolka Illinois ee dhaca dalka Mareykanka. wuxuuna bilaabay inuu shaqaysto xilli hore oo yaraantiisa ah. markii uu 13 sano jir ahaaba wuxuu ahaa mid ku iibiya salool wadooyinka. Paul wuxuu ahaa mid ku suntanaa karti iyo dadaal. bilowgiisan hoose ee uu nolosha ka bilaabayna kama dhigin mid ku eega nolosha indho fashil xambaarsanaa, balse wuxuu aaminsanaa in gooray tahayba uu mar uun xaqiijin doono guulo waaweyn. bilowgii guusha Paul waxay ka bilaabantay sanadkii 1928. xilligaasi oo uu 33 sano jir ahaa, waxay isaga iyo walaalkii Joseph Galvin yagleeleen warshad wax soo saar oo ay ugu magacdareen magaca reerkooda ee Galvin. waxayna xilligaasi la wareegeen shirkad batariyada samayn jirtay oo lagu magacaabi jiray Stewart Storage Battery. shirkaddan oo xilligaasi shaacisay inay cayrowday ayay u arkeen labadan walaalaha ah fursad ay lacag yar ugu iibsan karaan shirkad sidaasi u baaxad weyneed, waxayna kula wareegeen $600 oo keliya. shirkadoodan curdinka ah waxaa ka howlgeli jiray 5 shaqaale oo keliya, waxayna samayn jireen xilligaasi raadiyaha, iyagoo hindisay samaynta raadiyo ku shaqeeya bateriga, maadaama xilligaasi la adeegsan jiray raadiyoyaal ku shaqeeya korontada. ka hor intaysan muddo kadib hindisin raadiyo u gaar ah booliiska Mareykanka, waxayna ahayd shirkaddan curdinka ah mid xaqiijisa guulo isdabajoog ah, iyadoo 2 sano gudaheed ku guulaysatay inay soo xareyso dakhli sannadeed kor u dhaafay $265,000. dabcan la shaqaynta ciidanka ayaa aad u qancisay shirkaddan, waxayna mar labaad hindiseen qalabkii ciidan ee ugu horeeyey oo aan u baahnayn waayar ama fiilo. wuxuuna qalabkan gacan weyn ka geystay in Mareykanku uu guulo waaweyn ka xaqiijiyo dagaalkii labaad ee adduunka. kadib sannado ay la shaqaynayeen ciidanka iyo booliiska dalkaasi, wuxuu go'aansaday Galvin inay bilaabaan u jihaysashada suuqa caadiga ah, ayna hindisaan qalabyo ay ka faa'iidaysan karaan dadka intiisa kale. tallaabadii ugu horeysay ee uu qaaday ayaa ahayd inuu bedelo nidaamka iyo magaca shirkaddaba, isagoo u bixiyey Motorola. shirkaddan ayaa noqon doonta mid baal dahab ah ka geli doonta suuqa tiknoolajiyada adduunka, isbeddelna ku samayn doonta nidaamkii nololeed ee xilligaasi jiray. arrinta ay dhici karto inaynan badankan garanayn ayaa ah in Motorola ay tahay shirkaddii ugu horeysay taariikhda ee hindista taleefanka gacanta ee aynu maanta adeegsanno. wuxuuna ahaa yagleelaha aaladdan la yaabka leh nin lagu magacaabi jiray Martin Kober, oo ahaa maamulka ku-xigeenka shirkadda Motorola faraceeda New York. waxayna ahayd xilligaasi 1973. waxayna Motorola ka shaqaynaysay hindisidda aaladdan muddo 10 sano ku dhow ka hor intaysan daaha ka rogin. wuxuuna xilligaasi isku beddelay aalad ay dadkoo dhammi aad ula yaabanaayeen, hadalhayntiisu badatay, noqdayna mid ay hadal hayaan dhammaan warbaahinta adduunka oo idil. waxaana dadka la yaab ku ahayd sida qof uu awood ugu yeelan karo inuu la xiriiro qof kumanaan mayl ka fog. waxayna ahayd 13 bishii afraad 1973 maalintii ugu horeysay ee ay 2 qof ku wada hadlaan taleefan gacmeed. wuxuuna hadalkan dhex maray hindisaha taleefankan iyo nin lagu magacaabi jiray Gwen Anchen
oo ahaa shaqaale ka howlgeli jiray shirkad la dhihi jiray IT&TS oo ahayd shirkaduu tartanka la dhexeeyey isla shirkadda Motorola. waxaana Martin oo ku sugnaa shir saxaafadeed ka dhacay hotelka Hilton ee magaalada New York oo lagu soo bandhigayay taleefankan uu yidhi kelmaddii ugu horeysay ee uu aadamuhu isku weedaarsado taleefan gacmeed. 10 sano kadib, gaar ahaan sanadkii 1983 ayay suuqa keentay Motorola hindisahan dadkoo dhammi ay ku riyoonayeen helidiisa. wuxuuna ahaa xilligaasi qiimaha halkii taleefan lacag kor u dhaafaysa $4,000. dabcan marka aan ka hadlayno 1983 $4,000 waxay u dhigantay ugu yaraan $3 aynu maanta naqaan. jaajgaraynta ama dabaynta taleefankan ayaa u baahnaan jirtay 10 saac oo xiriir ah, adigoo marka uu buuxsamana isticmaali kara keliya 35 daqiiqo ka hor intaadan dib ugu celin dabka 10 saac oo kale. waxayna xilligaasi dadku u arkayeen qofka ku hadlaya taleefankan inuu yahay qof waalan oo isla sheekaysanaya, maadaama ay layaab ku ahayd suurtagalnimada in qof kula taagan uu la hadlo qof magaalo kale jooga. taleefankan oo lagu magacdaray Dynatag wuxuu ahaa mid iibsashadiisa iyo isticmaalkiisu ku koobnaa siyaasiyiinta iyo maalqabeennada, maadaama uu ahaa mid aad qaali u ahaa. wuxuuna ahaa qofka xambaarsan taleefan gacmeed xilligaasi mid lagu sunto inuu ka soo jeedo dabaqadaha sare ee bulshada. bartamihii sanadkii 1969 waxaa hayaan u boqolay cirmeerayaashii Maraykanka ahaa ee Neil Armstrong, Michael Collins iyo Aldrin. hayaankan oo ay jihadiisu ahayd dayaxa ayaa xambaarsanaa magaca Apollo 11 waxayna gooyeen masaafo lagu qiyaasay 225,623 mayl ka hor intaysan caga dhigan dayaxa. dhacdo uu adduunkoo dhammi indhaha ku hayay, wuxuuna xilligaasi yidhi Neil Armstrong oraahdii taariikhda gashay ee ahayd gorgorkii wuu caga dhigtay. waxayna ahayd Motorola shirkadda hindistay raadiyaha ama qalabka ka soo baahinayay oraahdaasi dayaxa. Motorola ma ahayn shirkad ku koobnayd taleefanada oo keliya, balse waxay ka ahaayeen taleefanadu 40% keliya celcelis ahaan wax soo saarka shirkadda, halka 60% kale ay ahayd shirkad samaysa qalabka kombiyuutarada, raadiyayaasha iyo noocyada kale ee tiknoolajiyada. waxayna ahayd mid sanado badan hoggaanka u haysay suuqa tiknoolajiyada adduunka oo idil ka hor intaysan kala wareegin hoggaanka shirkadda Nokia. sanadkii 2004 waxay Motorola xaqiijisay mid ka mid ah guulaheedii ugu waaweynaa kadib markii ay hindistay taleefan xambaarsanaa magaca Motorola Razr V3, moobil dhumuc yar ka koobnaa midabo badan, sidoo kalena ka dhuuban taleefanadii balbalaarnaa ee adduunka ka jiray. ayuu ahaa taleefankan, taasoo ka dhigtay mid muddo kooban gudaheed si xawaare sare ah ugu faafa adduunka oo idil. shirkadda Nokia oo xilligaasi ahayd shirkadda ugu weyn suuqa taleefanada adduunka, xitaa awood uma yeelan xaqiijinta guusha uu xaqiijiyey Motorola Razr V3 xilligaasi, taasoo ka dhigtay shirkadda Motorola mid awood u yeelata iibinta malaayiin taleefankaasi ah. laakiin sida guushu bilow u leedahay ayay haddana dhammaad u leedahay. waxaa hubaal ah marka laga hadlayo aadamaha in qofka aan horumarin naftiisa, sidoo kalena aan la jaanqaadin casriga uu marayo jiilkiisu, uusan awood u yeelanayn inuu ku sii waaro adduunkan isbeddel ka badan, nasiib darana uu ku fashilmayo nolosha. isla qaacidadan ayaa saamaysay shirkadda Motorola oo sidii Nokia ka seexatay horumarinta nafteeda iyo la jaanqaadidda isbeddelkii xawaaraha sare ku soconayay ee uu adduunka ku tallaabsanayay. halkii shirkado sida Apple iyo Samsung ay daah furayeen taleefanno casri ah oo aan horay isha aadamuhu u qaban, waxay ahayd Motorola mid haysay waddadii qadiimiga ahayd ee taleefanada isku laabmaya iyo kuwii xambaarsanaa lambarada. nasiib darana iskuma dayin curinta hal abuur ka duwan moobiladan ay ka daaleen araggiisa dadkoo idil. wuxuuna ahaa sanadkii 2012 sanadkii lagu dhuftay mismaarkii ugu dambeeyey nacshigii Motorola, kadib markii ay milkiyadeeda la wareegtay shirkadda Google oo ku iibsatay $12.5 bilyan ka hor intaysan ogaan Google in iibsashada shirkaddan ay ahayd khaladkii ugu weynaa abid ee ay gasho. dhowr jeer oo ay isku dayday inay dib u habeen ku samayso, waxay ahayd mid mar walba si joogto ah ugu guuldareysata soo kicinta shirkaddan nafbaxday ka hor intaysan go'aansan iibinteeda. waxayna ku sii iibisay $3 bilyan halkii ay shalay ku soo iibsatay $12.5 bilyan. sheekada guuldarrada shirkaddan Motorola iyo sheekooyinka la midka ahba waxay ina barayaan hal cashar, kaasoo ah in haddii aadan isku dayin samaynta horumar, sidoo kalena aadan la jaanqaadin isbeddelada xawaaraha sare ku soconaya ee uu aadamuhu ku tallaabsanayo maalinba maalinta ka dambaysa,
inaad ku soo dhacaysid meel cidla ah uusan jiri doonin qof kuu naxariisanaya ama dib kuu soo jaleecaya.